Dowladda Sacuudiga oo xabsiga dhigtay muwaadiniin Soomaaliyeed oo lala xiriirinayo kooxaha argagixisada. Ciidamada ammaanka boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa xabsiga dhigtay 30 qof oo ka soo kala jeeda 12 dal, kuwa oo lala xiriirinayo falal argagixisnimo oo bishii Abriil ka dhacay dalkaasi, sida boolisku sheegeen. Dadkan la tuhmay ayaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu hayaa baaritaano ku saabsan inay xiriir la leeyihiin kooxaha argagixisada loogu yeero. Dadka la xirxiray ayaa ka soo kala jeeda dalalka Soomaaliya, Suudaan, Yemen, Masar iyo Turki iyo Kenya, Iiraan, Syria, Bahrain iyo Kazakhstan. Tirada dadka Soomaaliyeed ee ku xiran dalka Sacuudi Carabiya ayaa ah 4 qof, waxaana loo haystaa in ay wada shaqayn kala dhaxaysay kooxaha jihaadiyiinta oo weerarada ka geysta dalalka Yurub, Bariga Dhexe iyo Afrika. Dad tiradoodu ay dhan tahay 5,348 qof ayaa xabsiyada dalka Sacuudi Carabiya ugu jira dambiyada in ay weeraro geysteen iyo in ay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada loogu yeero. Qaar ayaa racfaan doonaya in ay qaataan, halka kuwa kalena baaritaano lagu hayo. Sacuudiga ayaa feejignaan dheeri ah kaga jira kooxaha loogu yeero argagixisada, iyadoona dhowaan xogayaha guud ee Qaramada Midoobay uu ku ammaanay xukuumadda Riyaadh sida ay kaga go'an tahay in kooxahaasi laga feejignaado oo laga hortago falalka lidka ku ah ammaanka ee la imanayaan.